kalfadhigani golaha wakiilada Soomaaliland uu shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo labadiisa ku xigeen ayaa fadhigani waxa xildhibaanada golaha wakiiladu u codeeyeen xeerka komishanka Aydiska xeerkani oo kaabis iyo wax ka bedel lagu sameeyay waxa xildhibaanadu u codeeyeen in lagu daro xeerkani soo jeedimaha ay mudanayaasha golaha wakiiladu ay ku soo dareen xeerkani komishanka Aydiska sidaasina waxay mudanayaasha golaha wakiiladu ay ku ansixiyeen soo jeedinahaasi ay ka mid noqdaan xeerka komishanka Aydiska waxa kal fadhigani fadhiyay 42 xildhibaan waxa la gudagalay in cod gacantaaga in loogu codeeyo xeerkani komishanka Aydiska waxa ogolaaday xeerkani 29 mudane waxa diiday 9 mudane waxa ka aamusay xeerkani 8 xildhibaan sidaasina waxa ku ansaxay xeerka komishanka Aydiska gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa gudoomiyaha xeerka komishanka Aydiska